degmada koonfurta Jigjiga ayaa lagu qabtay shirweynihii hogaaminta hoose ee tuulooyinka degmada koonfurta Jigjiga. Ujeedada shirweynahan ayaa ahay sidii hogaaminta tuulooyinka degmada Shabeelle kor loogu qaadi lahaa garaadkooda siyaasadeed faham buuxana looga siin lahaa xoojinta nabadgelyada iyo horumarka. intii uu kulankan socday waxaa lagu soo bandhigay ahmiyadda ay leedahay midnimadu, arrimaha shaqo abuurka ee dhalinyarada, xaaladda degdega ah ee dalku ku sugan yahay iyo xeer hoosaadka xisbiga. Gudoomiyaha degmada koonfurta Jigjiga Cabdisalaam Xasan Xuseen oo kulankan furay ayaa sheegay in hogaaminta tuulooyinka looga baahan yahay inay qorshe ku shaqeeyaan lana ilaaliyo sareynta sharciga. sida aan la wada socono guud ahaan waxa tihiin hogaamintii hoose ee qabaleeyada marka waxa idin saaran xil aad u balaaran meesha kaliya waxa weeyaan dadka u dhawin oo idinka maamulka dadka ugu dhow kolkaan eegno structure-ka guud iyo qaab dhismeedka dawladda qabaleega ugu dhow shacabka degmada ku soo xigta gobolka heer deegaan inuu marka waa maxay waxa tiin dadkii ugu dhawaa ee bulshada la noolaabatiin maamulka ahaa maaragtay fulinayay hawlaha adeegyada kala duwan iyo guud ahaanba amniga iyo shaqooyinka faraha badan ee kale aad haysan ama aynu wada hayno marka waxaan ognahay guud ahaan haddii maamulku aanu ahayn maamul ay ka go'an tahay inuu fuliyo shaqooyinka uu hayo dhibaato badan baa ku imanaysa iyo caqabad bulshada marka waxaa loo baahan yahay maadaama aynu nahay dadka ay maamulayeen u dhawaa ama goobtaba ka soo baxay waa inaan noqono dad mas-uuliyadda aan hayno si daacadnimo u fulinaya oo eex ka hufan qabyaalad ka hufan musuq maasuq ka hufan iyo guud ahaan wixii shaqo xumo aba waayo dowladnimadu ma aha inaad mas-uul noqoto oo magac qaado oo meel fadhiisato oo aad tidhaahdo mas-uul baan ahay laakiin mas-uuliyaddu waa maxay waa inaad inta karaankaaga ummadda u adeegto oo aad fuliso mas-uuliyadda xilka waajibaadka ku saaran adoo ka duulaya qawaaniinta dawliga dadku markaa unbuu kala dambeyn heli karaa shacabka hadduuna hoggaan lahayna dawlad ma noqonayo hoggaanka hadduuna shacab lahayna dawlad ma noqonayo hadduuna madax bannaanayna de mama madax bannaano dalkiisa lamaba yaqaanba oo khayraadda caalamka ka mid maaha marka dawladnimadu waa inaan fahanno wey. Hoggaanka nabadgelyada ee degmada koonfurta Jigjiga Maxamed Axmed ayaa sheegay in bulshada looga baahan yahay inay la shaqeeyaan hay'adaha amniga kana fogaadaan wax kasta oo bulshadaas ku dhac u keeni kara lana caawiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen. xafiiska nabadgelyadu wuxuu rabaa inuu 3 qodob oo maaragtay arrimaha xaaladda degdeg ay ka tahay inuu ka hadlo weeyaan iyo nabadgelyada degmada Shabeelle gaar ahaan nabadgelyada degmada Shabeelle halka ay marayso inaan warbixin idin ka siino iyo waxa inagu soo kordhay xaaladda degdega ee wadanku ku jira koob balorta in leedina socotiyo maadaama tiin maamuladii qabaleeyada ee degmada Shabeelle weey xaaladda labaad waxa weeyaan warbixinaan ka siino xaaladda dalku ku jiro waa maxay xaaladda degdegi maxay inoo fasaxan maxaa mamnuuc inaga inaad fahantaan weey arrinta abaaraha in dadka la caawiyo oo la gacan qabto dadka waa in loo naxariisto waa in iyaga iyo xoolahoogaba maaragtay aad loogu naxariisto kaas waa qodobkayga labaad haddaba maxay ina faraysaa xaaladda degdegi ko waxay ina faraysaa waxa kamid ah shirar beeleedyada ee dadka la isugu yeerayo mamnuuc uu inaga yahay waxaa mamnuuc inaga in dad kala duwan iyagana la isugu yeero waa la wada hadlinta waxyaabahan waa la wada hadlinaya reebel arrintaasna waa laga fajignaanaya qabaleeyada xabadda aroosyada ka ridaya iyaga talaabo laga qaadi kuwa mamnuuc weeye taas marka waxaan u baahannahay xaaladda nabadgelyada nin walba qaabka maaragtay uga shaqeynaysaan inaad sii laba jibaartaan weeye